بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. walaalayaal magacayga waxaa la yidhaahdaa macalin maxamed saalax. waxaan ahay professor ama bare waxa ka dhiga jaamacadda Ohio State University muddo 15 sano ah. waxaan rabay in insha allahu caawa maadaama ay tahay sanad guuradii kontonaad ee qoraalka farta soomaaliga inaan ka hadla in yaroo muhiim ah. taariikhda muhiim ma aha oo dadku way ka wada dharagsan yihiin, laakiin waxaa jirto dhibaatooyin guryaha soomaalida ka haysato ku hadlidda caruurtooda afka soomaaliga. walaalayaal saad ogsoontihiin ba ilaahay subxaanahu watacaala ummad walba wuxuu siiyaa magaranaysaa afka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala magaranaysaa ummadaha uu siiyo bacda aliimaan. ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay min aayaatihi khalqu samaawaati waalardi waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanukum ina fi dalika laaaayaatin lilcaalamiin. oo macnaheeda caddaynayso inuu ilaahay qoom walba siiyey af ay isku afgartaan oo ay waalidiinta sooyaalka iyo dhaxalka ummaddaasi u gudbiyaan. haddaba waxa aan muddada 15 sano ahayn ku dhex jiray jaamacaddaas Ohio State University iyo 22 sanoon iskuullada magaalada Columbus Ohio ka shaqaynayay. waxa ay caddaatay in caruurteenniiba aanay afkii iyo dhaqankii ka baalmareen. hooyadii ama waalidkiina uu kula hadlayo caruurtiisii af soomaali, cunugiina ingiriis ugu jawaabayo. sidaa darteed ay soo socdaan jiil aad iyo aad u dhib badan oo u muuqata in dhaqankeennii dhumi doono haddii aynan arrintaa ku baraarugin Soomaali ahaan. waxaan ka digayaa waan idinku boorinayaa haddaad tihiin waalidiin Soomaali, war ifka waxaan ku leenahay diinta ka sokoowa dhaxalka afkaa baan walaalo dhaqankaa baan ku nahay. ilaah baa idinku dharshay ilmihiinna afka hooye bara. waxaan tusaale idiin siinayaa ma jirto qowmiyadahan muslimiinta ee soo galay waddankan ee annagana la midka ah, ama ha ahaato hindida ama ha ahaato bakistaaniyiinta ama ha ahaadan wasafka xataa xabashada daraskeenna oo dhibka badan naga dhexeeyo afkooda ilmahooda ma dhumiyaan. marka kuwa Soomaaliga waxaan la yaabay oon aad iyo aad oola yaabay waxa iga wallahi inaan been sheegay ilaahay uu soo yahay. waxaan arkay jaamacadda wiilka Soomaaliga ee ma gabadha Soomaalida 18 ka jirto waxay la aqoon tahay ninka caddaanka af Soomaaliga ba ta jaaxa khada ra'an uga bilaabay isku masta weeye waxyaabaha iga nixiya ka mid yihiin. oo markaan ku war maxaa idinku dhacayna waxay igu yiraahdeen waalidka iyaga sideedaba ahmiyadda waxa ay leedahay weligeedna nagalama hadlin. marka walaalayaalow arrintaa arrin weyn weeye oo dhibaato ku hayso oo runtii haddaan sidaan ku soconno jiilka hadda soo barbaaray 20 sano jiro waxa ay dhaleen waa ku dayna ogaada. marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo ummadda Soomaalida meel walba joogan, kuwa Yurub degan iyo kuwa North America degan iyo kuwa Australia iyo kuwa degan. waxa cajiib ah Soomaalidii waagi hore u qixi jirtay Carabaha u qixi jirtay halkaa ku noolaan jirtay ilmahooda ku dhali jiray afkii hooyo way garanayaan ma iloobin. maxaa inaga habaaray dadkeenan qurbaha imaad wasban maxaa habaaray. marka walaalayaal arrintaa baan rabaa inaad ku baraarugtaan. afka waa wax qaale waa dhaxal. see caruurtii diintoodii iyo dhaqankii iyo hiddihii sooyaalkii loogu sheegaa haddii afkii aanu garan. waxaan aaminsanahay hadda anigu mid ka mid a dhibaatooyinka ugu weyn ilmaheena suuqa la galeen ay la baabeen oo aanay waxba la maqlaynin. dee waalidka wuxuu ilmihii wax ugu sheega ma hayo. ilmaha wuxuu wax maqlayaa oo uu ku qiiroonaya oo dhagta ku raaracinaya marka ma garanaysaa luqadani uu fahmaya qiimaheeda. luqadii ba garan maayo. waxaan aaminsanahay waxyaabaha karaaskan kale ilmaheen inay dhaqaaqaan oo la dilo la xiro islaayaan dee waa faham la'aanka. marka waxaan rabaa cawada halkan anoo ka faa'iidaysan fursadan waxaan rabaa inaan macnaha dadka Soomaalida xasuusiyo in luqadda Soomaaliga ay la mid tahay dhigidda quraanka oo kaleento, ay la mid tahay iskuulada la aadayo, ay tahay waajib saaran waajibaadka waa ugu waaweyn ee waalidka Soomaaliga saaran ilmihiisa inuu afkiisa ku ababiyo ku barbaariyo weliba ku khasbo ku garaaco inay tahay insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.